بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala kulankeena inuu ka dhigo kulan khayr waa adduuniya aakhiraba ina anfaca. sheekhana waa u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdiyo, khayrkiisa ha badiyo. mowduuca ku saabsan walaalaynta bulshada iyo la dagaalanka ama dabargoynta qabyaaladda iyo waxyaabaha la midka ummadda kala geynaya ayaan daqiiqado kooban dul mari doona insha allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi inama almu'minuuna ikhwa, mu'miniintu wax kale isuma aha ee walaalo uunbay isu yihiin. xiriirka ka dhexeeya waa xiriir walaalnimo ee wax kale ma aha, mid cadaawadeed iyo mid dagaal iyo mid isnacayb midna ma aha, waa walaalnimo keliya. nabigeenna calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi almuslimu akhulmuslim, isla macnahaasuu faa'iideynayaa muslimku waa muslimka kale walaalkii. waxaa kaloo nabigeennu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam mu'miniintu marka laga eego sida ay isu jecel yihiin iyo sida isugu naxariisanayaan iyo caadifadda isu qabaan, waxay la mid yihiin sidii hal jir oo kale, hal qof jirkiisa oo kale, oo haddii hal xubin oo jirka ka mid ihi ay xanuunsato, jirka intiisa kale uu la xanuunsanayo oo uu la wadaagayo soo jeedka iyo xumadda iyo waxyaabaha haya oo dhibta ah, oo sidaa aanu u jirin qof xubin ka xanuunsan oo jirka intiisa kale iska raaxaysanayso ayay ummadduna la mid tahay. oo qof ka mid ah ama qayb ka mida waxaa soo gaara iyagoo dhan way wada saamaynayaan sama iyo xumaba. xadiiskaas riwaayad ka mida oo uu leeyahay imaam muslim waxaa ku jiray inuu yidhi muslimiintu waxay la mid yihiin sidii hal nin oo kale weeyaan, oo haddii isha laga qabto uu ka xanuunsado isagoo dhan uu isla xanuunsanayo, haddii madaxa laga qabto uu ka xanuunsadana isagoo dhan uu la xanuunsanayo. aayadaha qur'aanka waxayna tusayaan inay isku hal naf oo kale yihiin. rabbigeen wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum, wuxuu leeyahay walaa talmizuu anfusakum, naftiinna ha ceebaynina oo waxa ka sheeginina nafihiinna, oo looga jeedo walaalaha waxa ka sheegin. qofka walaalkiis wax ka sheegay, caayay, xumeeyey, wuxuu la mid yahay mid isagu iscaayay oo kale. marka aayadaha iyo axaadiistaasi waxayna tusayaan dadkani waa walaalo marba hadday mu'miniin yihiin ee wax kale isuma aha, waa isku hal jir oo kale, waa isku hal naf oo kale. waxaa la doonayaa in habkaas loola macaamilo. markii qisadii ifkiga qur'aanka ilaahay kaga warramay oo caaisha bint abi bakr radi allahu tacaala canha lmuminiin iyo safwaan ibnu mucadal radia allahu canhuma beenta ay munaafiqiintu ka sheegeen, qur'aankii ku soo degay waxaa ka mid ahaa walowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra. mu'miniinta ragga iyo kuwa dumarka ahi markay waxaa xun maqleen maxay naftooda khayr ugu malayn waayeen. marka labadaa qof baa wax laga sheegay oo mu'miniinta ah. marka sida adigu aadan naftaada waxa ugu quurin oo aadan wanaag ugu malaynaysid inay waxaa ka hufan yihiin, maad walaalahana u malaysid weeyaan, oo sidaa ka aamintid inay khayr u leeyihiin oo aanay xumahaasi ka suuroobin sida abu ayuub iyo xaaskiisa laga sheegay. marka waxaa laga dhigay naftoodii oo kale. arrintaa waxayna tusaysaa dadkan xiriirka ka dhexeeya iyo nooca uu yahay, iyo inay isla xanuunsanayaan, inay isku naf yihiin, inay isku jir yihiin, inay walaalo dhaba yihiin oo xiriirkoodu aan wax kale ahayn. xiriirkaasi marka wuxuu cuskan yahay oo sabab u ah waa iimaanka. qur'aanka markii laga warramay jihaadka iyo gaalada in lala diriro oo meel walba loo galo ilaa aakhirih laga soo sheekeeyey
ayaa waxaa ilaahay ku yidhi fain taabuu وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هذا قال لماذا كسر نقدان وأي مؤمنين نقدان صلاة دي زكاة لي مادان وولالهم ودين تإذن كوال الله ولا لماذا المركب وحي عسكنتها والسبب وإيمانك iyo rumaynta alle iyo rasuul iyo aakhire la rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa saldhig u ah xiriirkaas walaalnimo oo iimaanka ka dhashay ama ku qotoma wax goyn kara oo baabi'in kara ma jiraan oo aan ahayn gaalnimo in labada qof labada qabiil labada kooxood mid ka midihii uu diinta ka baxo diintii lagu walaaloobay ama iimaankii lagu walaaloobay inuu midkood ka baxa mooy si kale uma go'i karo qur-aanku wuxuu ina tusayaa iyaga oo wax iska sheego isxantay oo la leeyahay waa walaalo walaa yaqtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh qaarkiin yaanu qaarka kala xaman marka waxaa la yidhi ma jecel yahay midkiin inuu hilibka walaalkiis oo mayda cuno isagoo xantay baa la yidhi waa walaalkiis walaalnimadii way joogtaa isagoo xataa xantay qur-aanku wuxuu ka warramay iyagoo dagaalamay oo walaalnimadoodii la sugayo oo walaalnimadii ay joogto oo markuu ilaahay ka soo warramay markay laba kooxood oo mu'miniinihi dagaalamaan heshiisiiya hadday qolo ka mid ihi xadgudub samayso oo heshiiskaa ay diidana iyada isugu taga oo la dagaalama hadday lasoo khasbo oo ay soo hoggaansanto oo gar dhiibatana cadaalad ugu garsoora ilaahay kuwa cadaaladda wax ku xukuma buu jecel yahay markaasaa waxaa la yidhi inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu walaalo uunbay isu yihiinoo walaalihiin heshiisiiya dagaalkii ay dagaalameen walaalnimadoodii kuma burburin waayo wax adag baa isu haya oo iimaanka ah qur-aanku intaas wuxuu sii dheereeyey iyagoo isdilay oo kow isaga siiyey labadooda kii wax dilay iyo kii la dilay inayba walaalnimadii joogto xataa iyagoo isdilay cid xalaalaysatay oo diintiidii ka baxday ka hadli mayno laakiin waa qof ku xadgudbay walaalkiis oo dilay markii laga warramay axkaamtii qisaasta iyo cafiga haddii la isu cafiyo mag iyo wax lagu kala qaadanayo faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaan qofka walaalkiis dhiiggiisa wax ka mida loo cafiyo marka walaalnimadii way joogtaa waxay ku tusaysaa adayga walaalnimadaas iyo heerka ay joogto ahmiyaddeeda waxaa ku tusaya iyo qiimaha ay leedahay waxaa diinta islaamku ina fartay oo la ina amray inaynu samayno wax walba oo walaalnimadaa xoojinaya oo adkaynaya waa la ina amray amarkaasi waajibnimaha keeno ama sunnanimaha keene waa la ina faray si loo xoojiyo walaalnimadaas oo dhidibada loogu aaso waxaa ka mida salaanta assalaamu calaykum in la is yidhaahdo waxaa ka mida musaafaxada la iska canqaado waxaa ka mida weji furfuran in la isku qaabilo waxaa ka mida in markii la iska soo horbaxa la isu muusoodo ama la isu dhoola caddeeyo waxaa ka mida in wax la isu hadiyeeyo waxaa ka mida ka xanuunsan in la booqdo ka dhintay janaasadiisa in la raaco ka indhiso alxamdulilah yidhaahdo in yarxamuka allahu lagu yidhahdo laga farxiyo waxaa ka mida kii kuu yeerta munaasabad iyo farxaddiisa inaad kala qayb geshid waxaa ka mida ka la qafaashay in la soo daayo ka la dulmiyey in loo hiiliyo ka baahan in wax la siiyo wax walba oo dadka isu soo dhowaynayo o isjeclaysiinaya waa lagu amray qofkanna iskaa wax u qabsan maahay ajar buu ku helayaa waxaa la faray oo ajar weyn baa la geliyey dhinaca kale waxaa la mamnuucay wax kasta oo walaalnimada wax u dhimaya oo dhaawacaya waa la isu diiday xanta aan sheegaynay baa ka mida isku dirkaa ka mida in la xaqiraa ka mida in lagu jeesjeesaa ka mida waxaa ka mida in la dulmiyo waxaa ka mida in la khidlaaniyo ama la hoojiyo af soomaaliga waxaa looga jeedaa qofki isagoo hiilkaaga baahan inaad u hiilin weydid ayaa looga jeedaa wax walba oo walaalnimadaas wax u dhimaya ama dhaawac dhalasho in loogu faano ama isaga nasabkiisa la duro ayaa ka mid ah faanka guud ahaan baa iskiisi loo diiday in la isu faano waxaasoo dhani waxay keenayaan
in qalbiga dadka wax kala garaan sida loo ilaalinayo dadka walaalnimadooda iyo isjacaylkooda iyo isku xirnaantooda iyo midnimadooda xataa waxaa la diiday oo nabigeenu nahiyay calayhi salaatu wasalaam 3 qof markaad tihiin 2 ka mid ayaanay gaar u faqin si aan kan isu dhihin armay wax kaa sheegayaan ama armay kuu tashanayaan intaa yar baa laga ilaalinaya fuqahadu waxay yiraahdeen xataa mucaamalaadka maaliga ama wax kala gadashay iyo mucaamalaadka ku saabsan waxaa la diiday haddii waxaas lagu macaamilaya aanay wax macruufa ahayn in la heshiiyo baa la faray lama ogola wax majhuula in lagu macaamilo sababta oo ah tagsiilaan raacay tagsigu cadaad hadduu leeyahay ahlan sahlan haddii meesha aan u raacayo qiimo go'an ay leedahay sida basaska oo kale dhib ma leh laakiin haddaan iska fuulo oo uu niyeysta inaan 20 siin doono anna aan niyeysta inuu 10 iga qaadi doono labada yadaba hadhow waxbaa na gelaya intaa yar oo gelaysa xataa fuqahadu waxay dhaheen lama ogola waa in la heshiiyo haddaanay wuxuu markii hore macluum ahayn sida loo ilaalinayo dadka qalbigooda inay wax kala galaan wax yar oo qofka xumaana inaad ka tuutid nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ictikaaf ku jira baa xaasaskiisa mid ka mid ah Safiya bint Huyay baa soo booqatay radiyallahu ta'ala anha marka habeenimay noqotay habeenimay ahayd wuu dhaweeyay laba nin asxaabta ka mid ah soo maray xogaaba yara dheereeyeen markaas nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam war aayar iska socda Safiya weeyaan subhanallah ya rasuulallah yaani kuma aanan tuhmin bay leeyihiin markaas wuxuu ku yiri inna shaytaana yajri min ibni aadama majra ad-dam shaytaanku meelaha dhiigu mara ayuu qofka ka mara oo sida dhiigu u dhaxmara buu shaytaankuna u dhaxmaraya waxaan ka baqay inuu qalbigiina wax ku tuuro wax inuu ku tuuro ama shar ku tuuro saa darteed baan idinku sheegay si aan tuhmaba shaytaanku waxuun idin dareensiin nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasu kala diriraya waxa yar oo qalbigooda shaytaanku ku tuuri karo iyagoo aan nabiga tuhmayna calayhi salaatu wasalaam waxaa ku tusaysaa walaalnimadaas ahmiyadda ay leedahay iyo sida loo adkeeyey waxaa ku tusaya ahmiyaddeena nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu magaalada madiina yimid shaqada u horeysa oo weyn oo uu qabto waxay ahayd ismihii masjidkiisa calayhi salaatu wasalaam tilaabada labaadna waxay inuu mu'miniinta walaaleeyay heerka ay joogtay ku tusaysaa shaqada labaad baa laga dhigay walaalaynta mu'miniinta la walaaleeyay walaalnimadaasi waxay ahayd walaalnimo dhab ah oo aan dhayal iyo iska dhex ah midna ahayn waxay ahayd walaalnimo waxa ugu qiimo badan oo qofku uu heli karo la isu hurayo heerka ay joogto darteed waxa dhacday oo xadiista aad ku barateen in laba nin oo la walaalayo midkood uu ka kala ku yiri laba xaas baan leeyahay mid baan ku furaya xoolahana nin rag u xoolo badan baan ka mid ahay reer Madiine nus baan ku siinaya oo uu yiri reerkaaga iyo xoolahaaga Allah ku barakeeye bal suuqa i tusi reer makaaho ganacsiga yaqaan buu ahaa waa Cabdiraxmaan ibn Awf iyo Sa'd ibn Rabiic labadina waxa si dhaxmarayaan xaasaska aan ku fura mid xoolahana nus qaado walaalnimada dhalisay weey walaalnimada aan ka hadlayna oo nabigu calayhi salaatu wasalaam masjidka dhismihiisa oo xiriirkii Allah ahaa subhanahu wa ta'ala lagu adkeynayay xiriirka mu'miniinta ka dhaxeeya lagu xijiyay iyo walaalayntooda walaalnimadaasi waxay keentay in fi sadr al-islam la yiraahdo waaba la isku dhaxlayaa oo aqribadii ka sokow labadan la walaalayay baa isdhaxlaya ilaa xilli dambe oo muslimiinta ay bateen oo walaalnimadii dhidibada loo aaso raasikh ay noqotay la nasakhay oo la yiri marka qaraabanimada iyo xiriirka guurka waxa la isku dhaxlo heerkaas la gaarsiin in la isku dhaxlo walaalnimadaasi loo adkeeyo waxyaabaha ka dhashay walaalnimadaas waxa kamid ahaa qofku isaga oo baahan inuu huro waxa yar oo uu haysto aadka ugu baahan yahay waana tilmaantii ansaar ilaahay ku amaanay ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نفتوذا waxa ay u baahnayd bay walaalahood u doorayaan iyagu aad u gaajaysan oo aad ugu baahan nabiga kaleey salaatu wasalaam baan martii u yimi xaasaskii biiru maxaa haysaan guriyihii oo dhan waxa la yiri biyo waxaan ahayn lama hayo markaasuu wuxuu yiri yaa martigan caawa ii sooraya nin baa yiri aniga ninkii buu kaxeeyay markuu gurigii tagay buu xaaskii ku yiri maxaa haysaan waxay ku tiri wax yar oo caruurta la siinay wax kale lama hayo wuxuu yiri nabiga martidiisii baan wadaaya kaleey salaatu wasalaam ilmaha inaga farsameeyo inaga seex sidii bay u farsameysay way seexisay wuxuu yiri wuxuu keeno hadhow marka faynuuska farafareeyo inaga dami
waxay doonayaan waxa la cunayo oo yarka ah keligii inuu cuno waa isaga dhigaan inuu la cunayo sidii baa la yeelay ilmihiina waa la seexiyey xogaagiina waa la keenay faynuustii baa la damiyey keligiisaa cunay subaxdii markuu ninkii saxaabiga ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam arkay wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala xalay sidii aad yeesheen wuu la cajabay miyaad mise wuu ku farxay rabbi subxaanahu watacaala wuu la cajabay yacni saad wax u farsamayseen waxay gaartay ilmihii oo baahan iyo iyagii oo baahan in si xeelad ah lagu cunsiiyo martigaa walaalkood ah oo nebiga calayhi salatu wasalaam uu u soo dhiibay akthara min dalika waxaa la wariyey futuuxaadka muslimiintu markii ay wadeen niman wada dhaawaca oo asxaabtii nebiga calayhi salatu wasalaam oo marka qofku dhaawacma waxa u horreeya u baahda biyo weeye waa ogtihiin iyo ooman oo biyo yar midkood loo keenay inuu yidhi hebel sii oo hebelle uu yidhi hebel sii oo la yidhi midkoodna ma calfan taariikhda qaar 3 nin may sheegeen qaar 7 meelo qoraysana waan arkay oo kulli ka dhintay naftu ka dhacday iyagoo midkoodna biyihii cabin oo isagoo naftu biyo uga dhacaysa mid walba walaalkiis u doorayo waa walaalnimo heerkaa gaartay dhinac kale marka laga eego ahmiyadeeda waa wax janno lagu helo oo jacaylka ilaahay lagu helo subxaanahu wa tacaala oo ilaahay mar dadkooda qorraxaysan yahay sababteeda uu hoos kugu harinayo subxaanahu wa tacaala oo manaabir nuur ah ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay agtiisa lagu fariisinayo qiimaha ay leedahay oo iimaanku uu kaamil ku noqonayo yacni marka axaadiista nebiga aad akhriyid walaalnimada iyo jacaylka dar ilaahay qiimaha uu leeyahay iyo waxa lagu helayo wax la malayn kara ma aha marka walaalnimada aynu ka hadlayno dhab ahaan waa midda noocaas ah dhab ahaan waa midda noocaas dadka la walaaleeyo wax walba dhici kara waa bani aadam khalal iyo khilaaf iyo wax way iman karaan masaasay ku dhamaanaysaa may xal baa loo sameeyey kullu bani aadama khata wa khayru alkhataa'iina at-tawwaabuun ilma aadan oo dhan baa gaf badan inta gaftana waxa ugu wanaagsan inta ka noqota gafka iyo khaladkaas oo ka toobad keenta marka khaladkii waa la saxaya waxa lagu saxayaana waxa weeye islaaxu daati albayn in la heshiisiyo dadkaas oo wixii dhex yaalay oo xumo ah meesha laga saaro oo wanaaggii iyo walaalnimadii heerkeedii lagu celiyo laba xaaladood ama laba amar baa ka soo baxay markii dadka muslimiinta ay isqabtaan ama ay wax dhex maraan mid dadka isqabtaan la faray waxa waa inay heshiiyaan fattaqullaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqa oo ka heshiiya waxa idin dhex yaal oo ka walaalooba amar toosa iyaga lagu siiyey markaasaa weliba waxaa lagu daray wa atiicu allaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin alla iyo rasuul adeeca haddaa mu'miniintiin oo arrinta ka yeela heshiiskaa uu idin faray haddaad mar mu'miniin tihiin alla iyo rasuul ka yeela oo heshiiya saasaa lagu amray marka laba qof laba qabiil laba kooxood laba dowladood marba oo ahlul iimaan yihiin hadday isqabtaan waxay ku amran yihiin inay heshiiyaan hadday mu'miniin yihiin oo ay alla iyo rasuul ku adeecaan talabaadina waxa weeye mu'miniinta kale oo walaalahoodaba waxaa lagu amray inay walaalahooda isqabtay heshiisiyaano waa ta aayaddii aynu ku bilownay uu alla yidhi inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum walaalihim heshiisiye waxaa laga doonayaa dadka mu'miniinta ahi inaanay ku fiirsan dad mu'miniinoo ishaya labada isqaba oo iskhilaafay lama ogola in la fiirsado waa in la heshiisiyo laba derisa laba kale oo mu'miniin ah laba kooxood laba qabiil wuxuu raba ha ahaado marba mu'miniin iskhilaafay iyaguna waxay ku amran yihiin inay heshiiyaan mu'miniinta kalena waxay ku amran yihiin inay heshiisiyaan ilaa la gaarsiiyey qolada diidda in xataa la isugu tago oo aayadihii aanu akhrina hadaayey وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلهي كان ورمي سبحانه وتعالى هشيسين تاس قيمها أي لا إيا ولا لماذا أتكينت إلى لمتهد قيمها أي لا آودين وحا لو شخصي قفك ددك هشيسين يو ولا لماذا سوء علينا يو أتكين يا حتى إنه بين استعمالك سوء ددك إسوء سوء دوي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا النبي عليه الصلاة والسلام بينالهم معها كان ددك هشيسينية أو wax u kala gudbinaya khayr ah ama khayr u kala sheegaya walaalaha waa ku rabaan
way ka xun yihiin waxa dhacay heshiis bay diyaar u yihiin hadalkaasoo aan run ahayn dadku waa kacsan yahay si ay u soo degaan inuu labadaba gaarsiiyo dhinacba markay miyirsadaanna uu wada hadal siiyo oo wixii uu sidaa ku xalliyo marka beentii kabaa'irta ka mid ahayd oo tilmaamaha munaafiqiinta ka mid ahayd baa loo rukhseeyey si dadka quluubtooda loo mideeyo oo loo walaaleeyo oo la isu jeclaysiiyo oo xumaanta looga saaro dhinaca kalena waxa aynu ka arkaynaa cidda kala geysa oo isku dirta mu'miniinta jannaba ilsaari mayaan bi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata nammaam laa yadkhulu ljannata qattaat diraalaha dadka isku diraya oo quluubtooda kala geynaya janno maba gelaya buu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka maxaa kanna wixii dembiga lagu geli jiray ayuu ajar ka helay beenta wax ku maslaxay kanna xataa hadduu run sheego oo anaa maalan waxaan idhi dadkan qadar joogay jaaliyadda soomaaliyeed way khariban yihiin soo hadalkii inaa idhi waa run mid baa imaqlo wuu la orday wuu idiin soo sheegay run buu sheegay runtiibuu ku janno seegay kana beentiibuu ajar ku helay waxay ku tusaysaa ahmiyadda walaalnimadan ay leedahay iyo sida loo ilaalinayo la doonayo inaanay waxba soo gaarin arrintaas haddaynu ahmiyaddeeda sidaa u fahamnay waxaana saldhig u ahaa mowduucu shiikhu ka hadlayey oo ahaa sixatu tasawuraat in loo baahan yahay oo waa meesha inaynu ummaddeenna islaaxino ama aynu hagaajinno halka ay ka bilaabanayso macluumaadka iyo xogta aan ka ambaqaadayno oo waxa islaaxeennu uu ku dhismayo waa middaa shiikhu ka warramayey waana muqadimada hadda aan sameeyey intaa kadib waxaan ku gabagabaynayaa inaan idinku iraahdo ummadda muslimiinta iyadoo guud ahaan burbursan oo kooxa iyo waddamo yaryara u kala googo'day iyo qowmiyado haddana bulshadii soomaaliyeed oo la yidhi markeedii horena waa la sii kala googooyey ayaa intii yarayd oo gumaysiga ka soo baxdayna sii kala googo'day oo sii kala kooxowday oo weliba ay cuqdad iyo isnac iyo isdilla marar badan ay u dheer yihiin inkastoo ay wax badan ka soo biskoodeen waxaasi wax ka qabadkeeda waxaa saldhig u ah arrintaa shiikhu ka hadlay gaar ahaan mowduucan hadda aynu ka warramaynay oo walaalnimada iyo isjacaylka iyo isku kalsoonida iyo isku duubnida waxaynu marka u baahannahay inaynu arrintaa ficil u beddello tasawuraadka fiican inaynu ficil u beddello oo dhaqan gelino waxaana sidoodaba mar haddii la fuliyey oo lagu guulaystay waa la soo celin karaa oo waa la hirgelin karaa oo caraboo isu nicib dadka oo isu dil badan oo u qabyaalad badan oo weliba gaalo ah baa laga daweeyey oo saa nafta isugu horay dadkii nag iska dhigayo isboobayey baa dhaqan ahaan sidaa loo beddelay innaga qur-aankii iyo xadiiskii lagu beddela wuu inoo yaal inaynu innagu inteennan meesha fadhina iska bilowno bulshadeennana aynu arrintaa u gudbinno oo aynu ka shaqayno inaynu walaalayno oo isku duubno oo isjeclaysiino cuqdadda iyo isnacaybka ay isu qabaanna aynu meesha ka saarno arrintaa weeye arrinta aan doonayo inaan soo jeediyo baryahana culimmadu ay wadeen in wax laga qabto oo ficil loo beddelo oo guud ahaan soomaali guda iyo dibadba meeshii ay joogtaba wax laga qabto oo la isu kaashado jaaliyadda reer qadarna inay jaaliyadda koowaad oo hawshaas gacanta u taagta oo nala qabata oo iyagu iska bilaaba oo aad baan ugu faraxnay markii naloo riboorgareeyey sida jaaliyad ahaan isugu duuban tihiin aad u midaysan tihiin danihiinna aad ugu midaysantihiin aad bay runtii noo farax gelisay jaaliyadaha kale oo dhanna tajrubadiinna in loo gudbiyo oo la gaarsiiya baan rajaynaynaa weliba waa soo jeedinaa inaad wufuud dirtaan oo jaaliyadaha kale aad saa u soo abaabuli kartaan dalkii idinkoo wada socda oo soomaaliya ama soomaali weyn meel walba oo aad ka timaadeen wafdi isugu jira inaad deegaanada soomaalidoo dhan martaan oo dadka aad la hadashaan wax weyn bay u tari lahayd baan aaminsannahay barnaamijkaas waxaan doonaynaa si dhab ah oo kama dambays ah in looga howlgalo waayo waxaan u aragnay mushkiladda soomaali meelay joogtaba haysata cuqdadda iyo isnacaa iyo kala fogaanshahaas iyo qabyaaladda iyo gobolaysigaas inay saldhig u yihiin aana isku dayna inaynu ka tirtirno waqti dheer haynagu qaadato hadba aynu qayb ka gudubno sharka sidiisaba diinta islaamka waxa weeye
khayrka iyo danta iyo maslaxadda in la wada fuliyo haddaan la wada fulinna intii suuragala in la fuliyo marka mar walba inta suurtagalka inuu ah baan wadaynaa inaynu meesha u dambaysa aan gaarno oo aan soo saarno shacab Soomaaliyeed oo qabyaalad ka feeyow iyo gobolaysi iyo cuqdad oo isjecel oo walaalo ah oo isku duuban oo dantooda ka fakara waxaan ku gabagabeynayaa waxaan maqlay ninkan iminka Turkiga u ah ra'iisul wasaaraha oo Axmed Daawud Ogle la yiraahdo ayaa xisbiga dalka xukuma wuxuu u soo jeediyay fikrad la yiraahdo sifir mashaakil wax kasta oo mashaakila oo ina haystaa inaan siiro garayno oo aynu ka takhalusno oo aynu u soo jeensana danteena iyo saan wax u qabsan lahayn cid kasta oo dawladaha ama dariska ama kale oo loolan iyo wax ka dhaxlayeen bay la heshiiyeen qadiyadii Armanka tii Qobrus iyo Greega iyo waxa la isku hayay Suuriya oo ay isku hayeen Liwa Iskandaroon maxaan iraahdaa Ruushka laftiisa dawlado badan iyo dad badan bay la heshiiyeen daakhilka Kurdidii iyo arintoodii bay iska xaliyeen ilaa xad iyagoo marka miyir qabay waxay u soo jeesteen inay dantooda qabsadaan oo horumar sameeyaan waxaana la ku yiri markii xisbigaasi talada qabsaday dhaqaalaha adduunka dawladda 111 bay ahaayeen isku xiga yaani 110 dawladood baa ka horeeyay siyaasaddaas markii ay ku guuleysteen oo mashaakil oo dhan iska xaliyeen awoodoodii iyo maskaxdoodii waxay u jeediyeen horumar dawladda 16aad bay soo gaareen oo 15 dawladood kaliya ay ka horeysay dhaqaalaha dunida Soomaali xooggeedii iyo xoolaheedii iyo caqligeedii iyo cilmigeedii iyo waayi aragnimadeedii wax walba ay haysatay waxay u adeegsatay inay iyadu islu goyso hal qolana lugu imeyseen nin walba kan kala buu ku lugoynaya awoodiisa u isticmaalaya kana marka xagee horumar laga gaara xagee wax laga qabsada see wax loo tara nin walba intuu hayay int xagu ku beelaya kana xagu ku beelaya eber baa la isla keenay marka dhulka la wada tagay awal waxa loo qabay haday qolo heblo xoogaa kuwa kala layso inay iyadu khayr heli doonto kii dilay iyo kii la dilaba dhulka isla tageen labadii isdishay dhulka isla tageen labadba wada qaxayaan baday ku wada daadanayaan saxaaraha bahal ku wada cunayaan maxaan ku iraahdaa hay'ado xuno iyo dawlado yar yar oo awal ay ka tugtug roonayaan baa u imaan oo amraya waxay gaareen madaxweynayaashoodii in Afrikaankii waxaan maqlay Uganda iyo Tanzania oo mar dagaal 70 mar Soomaalidu Afrikada malaha ay madax u ahayd ciidamo miyay geeyeen ma garanayo intay dirireen bay dhaheen waa tilaaba in ka qaadayna iyaga awood ku kala ceshay haddana madaxweynihii Soomaalida Uganda waardiyeynaysa waxa keenay awoodii baa waxa loo isticmaalay si daakhilka in la isugu burburiyo marka arintaasna halkaasaan ku soo gabagabeynaya waxaan rajaynaynaa inaad hormuudkii hawsha u dhaqaaqi lahaa ugu horeeyay noqon doontaan aad baan u mahadsantiin jazaakumullahu khayran xagga warka ama sheekhan ku celinaya ama sheekh Abu Xasaan loo dhiiba iyaga iga badiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi